السلام عليكم كسور دوادا كنالك عبد العزيز بورلي كالسونيدا يا سامينتا ay ku leedahay nolosha qofka waxaad mararka qaar kood moodaa in dad badani aanay ogeynba muhiimadda kalsoonida iyo doorka weyn ee ay leedahay kalsoonidu runtii waa awoodda koowaad ee nafta hogaamisa kuna dhiirigelisa fal kasta oo ay qabanayso haddaba haddii qofku aanu kalsooni lahayn runtii aad bay u adag tahay inuu nolol fiican ku noolaado inta uu adduunyada joogo waayo kalsooni darradu waxa ay leedahay mushkilado badan sida cabsi badan oo ku timaada qofka markastaba warwar iyo walaac fara badan go'aan la'aan aanu marnaba go'aan gaadhi karin keligii una baahan yahay inuu dad badan oo kale uu kala tashado waxna uu ka weydiiyo haddaba haddii aad ka shakado inay kalsooni darro ku hayso isticmaal qodobadan soo socda 1 badso cibaadada ilaahay 2 yaree khaladaadka aad ka gasho bulshada dhexdeeda qoyskaaga iyo asxaabtaadaba 3 haddii aad ku guulaysan weydo waxyaabo badan oo aad rabtay inaad gaadho mustaqbalka niyadda geli adduunyada waa ka caakuf ee ha niyad jabin siina waad gaadhi doontaa mar uun 4 marka aad rabto inaad go'aan gaadho ama qorshe cusub aad samayso ha ka tagin xaqiiqada iyo sida suurtagalka ah mararka qaarkood waxaa niyad jab keena talo aan suurtagal ahayn oo aad gaadho 5 cabir naftaada tijaabana ku samee adiga oo xaqiiq ku socda tusaale ahaan imisa jeer baad waxaad qaban karaysay aad ku fashilantay naftaada u caddee waxa aad ku fiican tahay iyo waxa aad ku xun tahay waa inaad kala ogaataa aad bay muhiim u tahay sidoo kalena naftaada u sheeg runta markastaba gabagabadii ogow kulligeen dhaliilo badan baynu leenahay qofna ma dhamaystirna laakiin naftaada kalsooni ku qab iyo nooca ay tahay barana dabeecadaha dadka kale ee kugu hareeraysan si aad uga faa'iidaysato sidoo kalena aad wax uga barato